Assalaamu calaykum kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada channelka Rajadii Fanka. Channelka Rajadii Fanka mar walba waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa fanaaniinta hormuudka iyo horyaalka u ah soo noolaynta iyo soo celinta rajadii fanka Soomaaliyeed. Inagoo si dhow mar walba idinkugu soo gudbin doona arrimaha fanaaniinta ka qaybta ah dib u soo celinta rajadii fanka Soomaaliyeed. Maanta halkan waxaanu idinkugu soo gudbin doonaa ama aynu halkan idinkugu soo bandhigaynaa maxaa ka jira kala tagga fanaanada Rasmi Reis iyo sidoo kale Farxaan Yare. Arrimahaas oo dhowaanahan baraha bulshada la isla dhex marayay ayaanu halkan idinkugu soo gudbin doonaa. Haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena, fadlan subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad u hesho muuqaalada iyo warbixinada aynu halkan soo gelino. haddii wadnahayga la jeexo oo qayb laga jaro jirkayga jabkiisoo hadha xabiibi jacaylkaagu. Lamaanahan ayaa xiriirkoodu waxa uu yahay mid qoto dheer noloshoodana sal adag ku leh. Xiriirka lamaanahan ayaa muddo dheer soo socday, jacaylkooduna waa mid xadka ka tallaabay. Dadka arrimaha jacaylka falanqeeya ayaa dhowaanahan baraha bulshada waxay isla dhex marayeen in labadan fanaan ama lamaanahani ay kala tageen. Ha ahaatee, dadka qaar baa waxay lahaayeen waxa adag sida lamaanahan ay ku kala tagaan, maadaama lamaanahan ay yihiin kuwa jacaylkoodu uu yahay mid cudud adag leh. Sida ay ku kala tagaana aysan sahlanayn. Lamaanahan ayaa xiriirkoodu waxa uu ahaa mid aad u qurux badan, noloshooduna ay ahayd mid farxad iyo qurux ay ku dheehan tahay. Inta badan dadka taageerada u ah lamaanahani ayaa waxa ay hadda aamineen in ay kala tageen lamaanahani oo ayba kala faaruqeen. Jacaylka lamaanahani ayaa ah mid isha ay ku hayeen Soomaali oo dhammi iyo taageerahoodaba, maadaama lamaanahani jacaylkooda inta badan ay kusoo bandhigi jireen baraha bulshadu ay ugu isticmaalka badan tahay. Sidoo kalena ay la socdeen kumanaan ka mid ah taageeradooda iyo kuwa aan taageero u ahaynba. Dadkaasi ayaa ilaa hadda aan aaminin in lamaanahani ay kala tagaan, iyadoo taasina ay caddahay in aysan kala teginba lamaanahani oo ay yihiin kuwo wada jooga. Lamaanahani ayaa waxa ay ku tilmaameen dadkii hadalladaasi soo bandhigay ama hadalladaasi u soo gudbiyay taageerahooda in ay yihiin dad biris raadis ah oo raba in ay ka muufeeyaan kala tagooda. Farxaan iyo Rasmi ayaa dhowaan shaashada ka soo muuqday iyagoo taageerahooda u caddeeyay in aysan kala tegin oo ay weli ku wada joogaan farxadooda iyo noloshoodii aadka u heer sarreysay. Lamaanahan ayaa bulshada taageerada wax u sheegay in dadka arrimaha noocaasa u soo gudbinaya ay yihiin dad ka xun farxadooda iyo wada joogistooda, iyaguna aysan ku kala tegayn hadal nacab uu soo bandhigay. Sidoo kalena farxadda noloshooda ay kasii wadan doonaan halkaas iyo halkasii sarreysa. faraha badan la rabo in YouTube-ka lagu kala kacsado oo bil Ramadaan horta 100 been abuur baan aragnay bil Ramadaan horta wax fiican inaad iska ilaalisid wixii khalada iyo wixii dambi kugu ah. waxa dad rabtid inaad ka run sheegtid ka run sheeg, haddii dinadee aan maxaan ku rahdaanay ay been tahay inay wax ku kalifaya diyaar saaqata ilaahay dhaamo weydiiso saaqad ku siiyo. taada kale xabiibi dadka youtuberada oo dadka beenta ka sheego qofkan farxadiisa iyo wanaagiisa ayaa YouTube ku kala kacsan karaan. maxaa ku kalifa markasta in qof xumaantiisa YouTube ku kala kacsado? dadku isku wada aqli maaha, isku wada fikradna maaha. dadka qaarkood buu siiyay ilaahay aqli wanaagsan, dadka qaarkoodna waa iska maala yacni. marka ilaahay waxaan u ducaynaa in ilaahay caafiyo dadkaas xumaanta bini'aadan ka shaqeeya ama dadka taada kale ani Farxaan dhamaan youtuberada waan salaameena wanaagsan oo walaalayaasheena meel walba joogaan. waxaan ilaahay Ramadaan mubaarak. waxaan halkan aniyo noloshayda u soo fariisanay hadda dad badan baa maalintan isku sanay ilaa maanta
aniga farxaan naga been abuuro oo waxyaalo been ah social media noo geliyo ayaga waliba dadkeena shicibkeena ay arkaan maalin walba inaan YouTube-keena ku jirno iyo Snap-keena anaga dadka social media ka maqan manihin oo been laga sheegi karo aniga maalin kasta way soo horfadhino farxadeena wad u jeedaa laakiin dad badan aad jiro anaga been laga soo sheego waxaan rabnaa dadkaas inaan runta u sheegno dadka shicibka oo anaga naga warheynin oo aaminaya warkaasna aan ayagana dhahno waxaas wax ka jira malaha dadka baraha bulshada ku soo bandhigay kala tagga lamaanahani ayaa waxa ay sabab uga dhigeen ama ay ku sababeeyeen in lamaanahani isku dhacoodu uu ka yimid hadal uu Farxaan Yare Rasmarees ka codsaday codsigaasi oo ahaa in channelka Rasmarees magaca laga bedelo oo ay ku qoraan magac ay lamaanuhu ka midaysan yihiin kadibna Rasmarees ay ku gacan seertay sidoo kale waxay intaasi raaciyeen in wax yar oo basiid ah ay ku kala tageen lamaanahani taasi oo bay yiraahdeen dad kale haddii ay soo dhex galaan gartooda ay xallin karaan dhinaca kale Rasmarees ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in markeedii horeba ay iyadu barteeda YouTube iyo barta Instagram ay ku soo bandhigtay boosti ah in ay channelkeeda magaca ay ka bedelayso kadibna ay ku qorayaan magac ay ku midaysan yihiin iyada iyo xaajigeeda